wasiirka diinta iyo waqafta ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta socdaal uu ku yimid magaalada Berbera waxa uu kulamo la qaatay mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada Berbera iyo waliba madaxda iyo ka howlgala hay'adaha laamaha dawladda ee magaalada Berbera waxaana wasiirku uu tilmaamay in ujeedada socdaalkiisu ay tahay sidii ay isu xog wareysan lahaayeen madaxdaasi kala duwan iyagu ka tirsan hay'adaha laamaha dawladda isla markaasina ay u sii xoojin lahaayeen xiriirka ka dhaxeeya wasaaradda diinta iyo waqafta iyo waliba hay'adaha kale ee laamaha dawladda mar walba ay naga dhaxayso dad kulamada fara badan oo jiraan xafladaha leedihiin in marka qarka wasaaruhu ay hargeysa u joogeen laakiin si kala qayb galaan mas'uuliyiinta joogta gobolada iyo deegaanada hoose aad iyo aad baan tahay idinka mahadnaqaya idinka mahadcelinaya kulay kulankan saaka la kulmay xogreesigii ama dareenkii aan qaatayna waxay arkay dad mas'uuliyiina oo runtii shaqadooda ka adag oo runtii u heelan si ummadda ay u horumarin lahaayeen waxay noqotaba awoodoodu ay yihiin baan dareensanahay waxa wasiirku si weyn ugu mahadnaqay mas'uuliyiinta gobolka Saaxil iyo kaalinta ay ka qaataan sidii ay kor ugu qaadi lahaayeen wasaaradaha kala duwan ee gobolka Saaxil waxa uu si gaar ah ugu mahadnaqay maariyaha guud ee dekedda Berbera Injineer Cali Cumar Maxamed Cali Xorxor oo tilmaamay inuu kaalin weyn ka qaato dayactirka iyo dhismayaasha masaajidada kala duwan ee magaalada Berbera gudoomiyaha gobolka Saaxil iyo dooqa magaalada Berbera iyo shidwaha wasaaradda diinta iyo waqafta iyo iyaguna si weyn u soo dhaweeyay socdaalkan uu wasiirku ku yimid magaalada Berbera sheeganay inay si weyn ula shaqeyn doonaan wasaaradda diinta iyo waqafta mas'uuliyiinta waxa jiray ay shaqaalaha way shidwaal badan ay tigeen oo mas'uuliyiinta xagga uu ka socda waxa dadanahay laakiin waxaan ku leeyahay ku soo dhaw wasiirka uu sheegay maayo balan deeqa hore wataan wasaaraha sameeyay haddana wali ma soo wada guurin runtii waxaan si rajeynayaa insha Allah taala weekend soo socda in hadii ilaahay idmo ay degaan saacada wasiir waxaan ka degma ahaan ku sheegayaa anigoo ku faraxsan safarkaaga gudoomiyaha gobolka Saaxil wuxuu ballan qaaday in xafiiskii uu shaqeeyo oo si temporary xafiisku sii deganaado anaguna insha Allah qorshaha sanadka hadii ay ka dhigo 2015 waxaan jeclaan ku ballan qaadno horta dhulkii wasaaradda diinta iyo waqaftu ay dhisan lahayd waxa kale oo aan ku sheegayaa wasiir inaan gacan buuxda ka siin doono ka dowlad hoose ahaan in guryaha Ilaahay ee ka dhisan degmada oo runtii la dayactiro laakiin haddana baahidoodu mar walba ay tahay baahi joogto ah inaan anaguna ku darsano mashaariicda isla gobolka Saaxil mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada Berbera iyo waliba mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabteen waxay kaga jawaabeen hadallo ka soo yeedhay gudida dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka ee golaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland runtii waxaan ahay isduwaha wasaaradda waxbarashada gobolka Saaxil xildhibaanadaasi baarlamaanka ka tirsanaa waxa ay sheegeen wax laala wax ka jira ma jiraan tusaale ahaan waxay yiraahdeen qarashaadka miisaaniyadda dalka marka la qaybiyo Saaxil wax laala wax gaadha ma jiraan Saaxil waxa jooga shaqaalaha ugu badan waa wasaaradda ugu badan wasaaradaha gobolka 488 qof ayaa mushaharkoodu yimaada waxaas kale oo yimaada kharashaadka iyo dayactirada loogu tala galay hawlaha waxbarashada guud ahaan miisaaniyadda waxbarashadu waxay dhan tahay mushaharka oo kaliya waa 4.5 bilyan sanadka u dambeeyay waxa jira 380 milyan oo iyagana loogu tala galay kharashaadka leydhka biyaha gaadiidka markaas waxaan sheegayaa arrinkaas waxa laala wax ka jira ma jiraan anigoo ah xisaabiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Saaxil waxa jiray war laga sii daayay miidiyaha joornaal lagu qoray miidiyaha kale laga sii daayay warkaas oo aanan garanayn anigu meel uu ka yimid ma garanayo anigu markaan ahay xisaabiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Saaxil marka nin xildhibaan uu leeyahay miisaaniyad ma lama siiyo gobolka Saaxil wasaaradda waxbarashada xafiisku wuu furay oo uu shaqeeyaa 120 iskuul baa ayaa maxay haday gobolka ka shaqeeya marka ma isaga ma wuxuu leeyahay aniga dakhliga siiyo oo aniga ayaa maxay haday kharashka siiya ana mushaharka bixiya ana shidaalka bixiya gobolkan waliba wuxuu dheeriyay waxyaabo kale oo badan buu dheeriyahay yuuse wareystay ku yidhi aniga xisaabiyahay miyaan arkay miyuu arkay gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka waxaan leeyahay xildhibaanada war waa la idin soo doortay oo dad baa mas'uul ka tihiin oo codkooda ku fadhidaan nimayo ilaa maalinta xilka qabateen qas iyo wareer ba ku jirtaan
dalka waxa yeeshaan weeye waxba ma tari runtii waa wax laga xumaado in mas'uuliyiin dhami ay hafar ka sameeyaan gobol dhan ama degmo dhan waxaan cadeynaynaa inay maanta heerka ugu wanaagsanayd ee waxbarashada gobolka iyo degmaduba ay marayaan inay wasaaradda waxbarashadu tahay wasaaradda keliya ee ku tallaabsatay maamul daadejinta in deegaanka la taabsiiyo oo dowladaha hoose iyo lasbaro dadweynaha oo dowladda hoose la baray dadkooda u adeegto waa wasaaradda keliya ee maanta wareejisay sanadka 2014 ee maamulkeedan gacanta ku hayno haddii ay wax madow ku jiraan ama ay wasaaraddu ay dan khaasa ku qabto ma suurta gashay inay wareejiso wax lagan xumaada qof gobolka joogay aan dhaho maalin gelinkeed in wax ka sheego runtii maanan arag waxaad arkaysaa markaa ninka inuu riyooday ma aqaano meel uu ka keenay garan maayo bil xaqiiqa inankaasi wasaaradda waa u gafi waa haddii xildhibaanka sharcigu qabto waayo waxa weeyaan xurmaddu waxay ka fiicneed waa dowladda ka mid yihiin waa laba gole weeyaan haddii shaqadooda horta markii horeba ma ahayn laakiin waa hay'ad lagu darsaday lafteeda inay baarlamaanka uga dhex yeedhaan oo yidhahaan waxaana jiray caddee soo kama habboonayn inta laga leeyahay shaaric mukhtaar cabdiraxmaan maxamuud telefishinka qaranka Somaliland Berbera